Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo naga hadli doono magaalada Gaza iyo si la mid ah laba safleynta reer galbeedka ay ku wajahayaan xaaladaha magaalada Gaza. Waa kee wejiga dhabta ee reer galbeedka, midka dagaalka mise midka gargaarka? Xaaladda magaalada Gaza oo dad badan ay ku weerarsan yihiin, halka reer galbeedka loo wajahayo ma dhinaca gargaarka ayaa loo wajahaa mase dhinaca dagaalka? Labada dhan ee gargaarka iyo dagaalka reer galbeedka oo dhaqaale badan ku bixinaya marka loo eego dagaalka magaalada Gaza. Faalo kooban ayaan ku soo qaadan doonaa xaaladda reer galbeedka iyo si la mid ah laba bogleyntooda ama laba safleynta ay magaalada Gaza ku wajahayaan xaaladda ka taagan. Soo dhawaada daawadayaal mar kale, Caalam Media 24 ku soo dhawaada. YouTube-ka subscribe noo saar haddii aad nagu cusub tahay. Haddaad hore noola joogtaan fiidiyowga noo share galee. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Gaza oo marmar ka dambeysa ka sii daraysa. Wadahadallana ay soconayaan lagu dhexdhexaadinayo Falastiiniyiinta, kooxooda wax iska caabinta gaar ahaan Islaamic Jihad iyo ururka Xamaas iyo maamulka Yuhuudda kana socda magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa haddana xaaladii ugu dambeeyay ee magaaladaasi Gaza ayaa sheegaya in magaalada ay ka taagan yihiin xaalado bini'aadanimo aad u daran. Sidoo kale isbitaalka Al-Shifa oo muddo bilooyin ka hor ciidamada Israa'iil ay weeraro xooggan ku hayeen ayay mar kale dib ugu laabteen, iyagoo halkaasi tilmaamaya in saldhiggii Xamaas dib loogu soo celiyay kadib markii ay ka baxeen. Duqeymo iyo si la mid ah howlgallo ayay ku hayaan isbitaalkaasi oo la sheegay in dad dhaawacyo daran qaba oo daawo fiican aan haysan halkaasi lagu hayo. Sidoo kale dad badan oo qaxootiyiin ay degan yihiin. Wararka ka imaanaya magaalada Gaza ayaa sidoo kale sheegaya in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ee magaalada Gaza ka howlgala shaqaalaha u shaqeeya 100 qofood ka badan muddo asbuuc gudaheeda ay ciidamada Israa'iil ku dileen duqeymo iyo si la mid ah howlgallada ay ka wadaan magaaladaasi Gaza. Dhimashada iyo dhaawacyada soo gaaraya hay'adaha gargaarka shaqaalaha u shaqeynaya hadda ma cusba, waxaana bilowgii dagaalkaba Israa'iil ay bilowday in weerar lagu qaado, sidoo kaleetana la duqeeyo, howlgallana ay ka sameeyaan dilaana shaqaalaha u shaqeynaya hay'adaha gargaarka, iyadoona ixtiraam darro badan loo muujinayo hay'adahaasi gargaarka. Sidoo kaleetana waxay ku eedeysay hay'adda lagu magacaabo UNRWA ee ka shaqeysa magaaladaasi Gaza qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta inayba la shaqeyso kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Wadahadalladu sidoo kale way soconayaan, inkastoo Xamaas saraakiishooda oo hadlay ay sheegayaan Israa'iil markii koowaadba ay diidmo ku qaabishay wadahadalka hadda soconaya, taas oo dheerayn karta in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo wadahadallada soconaya. Barnaamijkeena qodobka ugu weyn aan ku soo qaadanayna waxa uu noqonayaa dowladaha reer galbeedka oo Mareykanku ugu horeeyo ayaa shaki badan laga muujinayaa, iyadoo caalamku intiisa kale ay fahmi laayihiin halka saxda ah ee loo raaco. Siyaasadda marka la yiraahdo wadamadu way isfahamsan yihiin, hase ahaatee dadka shacabka iyo ummadda muslimiinta ee magaaladaasi Gaza ka damqanaysa ayaa ku weerarsan reer galbeedka dhinaca ay jiraan. Marka la fiiriyo dhinaca Israa'iil, hubka iyo dhaqaalaha ay ku dagaalamayso waxaa bixinaya reer galbeedka, sidoo kaleetana taageero xooggan ayay markasta siinayaan. Marka la yiraahdo dhinaca gargaarkana waxay ka muujinayaan inay kaalin muhiim ah ka qaadanayaan, iyagoo tilmaamaya inay ka qayb qaadanayaan deked laga dhisayo magaaladaasi Gaza si gargaar loo gaarsiiyo shacabka Falastiiniyiinta ee dhibaatada xooggan ay haysato. Sidoo kaleetana Mareykanka dowladda uu ka mid yahay waxay ka qayb qaadanayaan gargaarka hawada laga soo daadinayo. In dhinaca gargaarka laga qayb qaato, lacag badan ay ku bixiyaan hay'adaha gargaarka ka shaqeynaya magaalada Gaza ka shaqeeya, sidoo kaleetana budget iyo dhaqaale xooggan lagu bixinayo dhanka dagaalka Israa'iil ay wado, ayaa waxa ay tahay laba safleynta dad badan ay shaki ka muujinayaan. Dowladaha ugu waaweyn ee reer galbeedka ee Israa'iil taageeraya waxaa ka mid ah Mareykanka oo hub iyo dhaqaale badan ku bixinaya. Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ugu xooggan dowladaha dhaqaalaha ugu xooggan ku bixinaya. Sidoo kaleetana kuwo badan oo iyaguna kuwaasi ku soo xiga ayaa markasta la garab taagan maamulka Yuhuudda, taageero dhaqaale, hub iyo si la mid ah garab istaag dhanka niyadda isugu jirta. Dhinaca kaleeta marka la yiraahdo magaalada Gaza, hay'adaha ka shaqeeya dhaqaale badan waxaa ku bixinaya wadamada reer galbeedka iyo si la mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo iyaguna budgetka ka hela reer galbeedka. Dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dowladahaasi reer galbeedka waxay sidoo kale Israa'iil ay la garab taagan yihiin marka qaramada midoobay isku yimaadaan kulamada la yeesho arrimaha looga doodo ee la xiriira magaalada Gaza iyo xabad joojinta la doonayo in laga gaaro. In xabad joojintaasi la gaari waayo, cidda ka shaqeynaysa waa reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeya, markastana veto power la garab taagan, maadaama ay hub siinayaan
sidoo kale dhaqaale xoogan ku bixinayaan, garab istaag xoogan ay siinayaan, veto powerna la dhinac taagan yihiin si aan marna loo soo saarin qaraar xitaa cambaareynaya Israa'iil dhibaatada ay geysanayso ama ku baaqayaan xabadda la joojiyo, taageersan yihiin oo markaas ay qiranayaan inay leeyihiin Xamaas ayaa la tirtirayaa, shacabka Falastiiniyiinta ee carruurta u badan ee halkaasi ku la'aanayana Xamaas ay ka soo qaadeen inay yihiin, haddana ay gargaar ku bixinayaan iyagoo cirkana ka soo daadinaya maraakiibna soo dhoobay xeebaha magaalada Gaza. Waxaa dad badani ay ku weerareen meesha loo raaco laba dhinaclaynta reer galbeedka oo dad badani ay aaminsan yihiin inay ka shaqaynayaan dhan wanaagsan oo gargaar bixina. Dagaalka magaalada Gaza oo muddo 6 bilood soconaya inta uu socdo reer galbeedka waxaa la sheegay in boqolaal diyaaradood oo hub wada iyo daawo iyo sidoo kaleeto saraakiil ciidamadooda ka mid ah oo qidada dagaalka ka qayb qaadanaysa ay soo gaareen dhanka Israa'iil, kuwaas oo garab ku siinaya sidii dagaalka magaalada Gaza ee shacabka iyo carruurta lagu leynayo loo sii xoojin lahaa. Dowladaha intaasoo taageera Israa'iil siinaya dhanka kale waxay sheegayaan in aad uga walaacsan yihiin dhibaatada shacabka Falastiin soo gaaraysa, in la gargaaraan oo aad ay ugu baaqayaan. Sidoo kale waxay leeyihiin Rafax ayaan la weerarin iyo ixtiraamka loo muujiyo goobaha isbitaalada iyo kuwa cibaadada. Dhanka kaleetana marka la isugu yimaado kulamada golayaasha qaramada midoobay, cid cambaareyn karta ama ka hadli karta ma lahan ficilada xun ee Israa'iil ay geysanayso. Garab istaag xoogan ayay markasta u muujinayaan oo sida ay hub ugu daabulayeen oo kale ayay golayaasha qaramada midoobay uga difaacayaan. Haddaba waa kee wejiga dhabta ee reer galbeedka marka laga eego dhanka gargaarka iyo dhanka dagaalka? Waxayse adigu kula tahay in reer galbeedku ay markasta ay uga laba wajiileynayaan dhan wanaagsan mar u muujinayaan dhinaca xumaanta oo dagaalka iyo leynta shacabkan ay ugu garab taageen Israa'iil? Daawadayaal, qodobkeeni koobnaan uga hadlaynay reer galbeedka oo laba saf ku wajahaya xaaladda magaalada Gaza, dhinac dagaal iyo dhinac gargaar. Intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa. Intaan qodobkan la mid kulmayno kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.